dadka ku amar ku taaglayaan wax intaas ka badan meesha ma yaalin way ugu dambeyn marka ma isleedahay waqtigan Soomaaliya marka la yiraahdo baraaruga dadka oo hadda deegaano kala duwan oo Soomaaliya kamid ah waxa ka bilaabay kacdoono ay dadku uga soo horjeedaan oo ay uga dhiibinayaan ama dhacal loo geysanayo iyo dilkii dhibaatada lagu hayo oo al-shabaab laftiisa ay hadda qaati ka taagan yihiin ciidankii hawlihii kalena way socdaan adduunkii kalena waxaa moodaa Soomaaliya marka qaar in aad loo maaragtay loo bartilmaameedsanayo xubnaha al-qaacida ma isleedahay shabaab hadda yani xaalad ku jiro si gabagaba ah suurtagal way noqon kartaa marka la qiimeeyo waxa ku socda shabaab suurtagal way noqon kartaa in koox lamid ah ay kasoo dhinac baxdo oo fursad hesho meelta suuqa oo kooxahan xajirnimada ku shaqeysta oo diinta magaca diinta intay isticmaalaan ku dhex adeegto danaha ku fushada suuqaas hadda waa soo xirmay intiisa badan tiro aad u yaraa ku dagan weli oo iyadana waa iska soo yaraanaysaa markasta oo dawladnimada iyo systemka iyo maaragtay ay xoogeystaan oo ciidanka Soomaaliyeed uu xoogeysto oo dadka Soomaaliyeed fahamkooda kor u soo kaco markasta oo ayagana ay hoos u dhacaan wadiga ka warhaya sanado ka hor laga mahadi yani dada burursanay oo wax fiican ay lahayd laakiin mujtamaca Soomaaliyeed fahamkiisa marka fiirisid maanta inaad shabaab tahay caay ka dhigan tahay maanta hadii uu qofku yiraahdo shabaab tahay qofkaas waa ku caay qofku ku yiraahdo daacish tahay waa ku caay marka wax oo bari diin loo arkay ama wax fiican loo arkay maanta dadku inay insult u arkaan caay oo laga yaabo marka qaarkood inaad gashid gar oo qofku uu qabsado ninkan shabaab tooga dhahay inuu ku qabsado oo aad gartaas kale ma tiirniyo macnaha caay inay noqoto waxay muujinayaan baraaruga mujtamaca Soomaaliyeed soo kor u soo kacay waxaan kala aaminsanahay cidana kama garanayso mar dambe inay dadka ku lumiyaan diinan wadnaa iyo mujtamaca Soomaaliyeed waa ka bogtay waxa ugu dambeeyay wixii ay daraad sameeyeen al-shabaab ka sameeyeen oo tir saxafi hooyo Soomaaliyeed oo 5 caruur haysata oo uur 9 bilood leh tusaale baan soo qaadanayaa labadii caasiya isku dhacday iyo dadkii meesha joogay 50 qof dhimatay ya 50 kaas qof ee masaakiinta ay jidka marayeen ay galabsadeen sidee loogu qanci karaa mujtamaca Soomaaliyeed in hooyada Soomaaliyeed isbitaal Digfaar jiifta ee Saadiye Saleeman la yiraahdo ee labadeedii adin ay gooyay ilmihiina lagu ay ka halaabeen 9 bilood ah in qolada saas sameysay ay Ilaahay u shaqeyso oo ay diinta islaamka u adeegto qof ku qanci karta bijirto mujtamaca Soomaaliyeed mujtamaca wax garta oo diin iyo naxwo iyo dareen leh marka badeecadaas waa badeeco oo baaraysa waayo oo soconaysa maaha